kusoo dhawaada warbixin koobaysa safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagayo dalkaasi Uganda. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu Isniinta oo ay bishani 8 tahay u booqdo dalka Uganda isagoo halka ku joogaya booqasho rasmi ah oo 3 maalmood ah lana kulmay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni. waxa inta ay booqashadu socoto jiri doona kulan ganacsiga looga arinsanayo oo dhaxmari doona labada dal kaasoo ku qabsoomi doona Isbeeka Resort Munyoyo. inta uu booqashadan rasmiga ah ku jiro wuxuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh tagi doona Kabeka Industrial Park iyo Nek Industries oo ku yaala degmada Nakasongola. degmada Nakasongola waa degmo ku taala gobolka bartamaha Uganda, halka magaalada Nakasongola ay tahay xarunta maamulka degmada ka taliya. waxay deeto Isbeeka Resort Munyoyo iskugu iman doonaan dhigiisa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni, halkaasoo lagu qaban doono madal ganacsi oo ay goobjoog ka noqonayaan madax iyo ganacsato ka kala socota labada dal. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale la kulmi doona ganacsatada Soomaaliya ee ku sugan Uganda. kulanka labadan dal ayaa salka ku haya heshiis ay gaareen 2016 oo saameynaya dhinacyo aad u kala duwan oo iskugu jira wasaaradaha, waaxaha, wakaaladaha dawladeed, wada tashiga siyaasadeed, gaar ahaan arrimaha dibadda, difaaca iyo ammaanka, booliiska, gaadiidka cirka, ganacsiga iyo maalgashiga, caafimaadka, beeraha, xoolo dhaqashada, qaxootiga, adeegyada maaliyadda, dalxiiska, dhaqanka iyo wax lamid ah. haddaba hilinka NTV laantiisa Uganda ayaa ka hadlay oo warbixin ka sameeyay muhiimadda ganacsi ahaan ay Soomaaliya haatan u leedahay dalka Uganda sida uu sharaxay Francis Kisirinya. wuxuu xusay in intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2020 ama muddo 4 sano gudahooda ay Soomaaliya ka soo iibsatay dalka Uganda caano iyo waxyaabo la halmaala caanaha oo qiimahoodu gaarayo $5 milyan ama $500,000. isla muddadaasi waxa kale oo ay Soomaaliya ka soo iibsatay dalka Uganda sonkor qiimaheedu uu gaarayo $1.4 bilyan ama ku dhawaad $1 bilyan iyo bar. sidoo kale waxay Soomaaliya isla intii u dhaxaysay 2017 iyo 2020 ay Uganda ka soo raratay khudaar qiimaheedu gaarayay $1 bilyan iyo bar, taasoo ay Uganda ku sheegtay sababaha aanay suuqaasi Soomaaliya u dhayalsan karin oo ay u rajeynayso in uu intaa ka sii ballaarto oo ka sii xoogaysto. Soomaaliya ayaan lahayn wax soo saar warshadeed oo macno leh iyo dhaqaale fadhiya, waana sababta ay ugu jirto wax loo yaqaano naaqus ganacsi ama trade deficit marka la eego ganacsiga ay dal kasta la samayso inta ay u iibgeyso iyo inta ay ka soo adeegato ama ka soo iibsato. Maxamed Xaaji, Hadalsama Media.